mas-uuliyiinta kuuriyada koonfureed ayaa shalay waxaa la baarayay tirada dadka dhimatay 130 qof oo xaflad ku sugnaa ka dhacaysay magaalada Xi'an iyadoo dalka qaarlaasuhu isu dayay inuu la kulmo mid ka mid ah masiibooyinka ugu xumaa abid ee soo mara dalka ayaa waxaa ka bilowday baroordiiq muddo 7 toddobaad ah iyadoo mas-uuliyiintu ay isu dayayaan inay fahmaan sida uu dhacay burburkan baani ugu yaraan 26 qof oo ajnabi ah ayaa ku jiray muwaadin oo ah Mareykan ayaa ka mid ah dadka ku dhintay in ka badan 12 safaaradood oo adduunka ayaa xaqiijiyay dhibanayaal ka mid ah dadkooda iyo dalkooda waxa sababay macada laakiin goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka xafladda joogay si adag ay uga soo buuxsameen wadooyinka ciriiriga ee ku yaala degmada Itaewon iyadoo dadku ay ku raaxaysanayaan usbuuca u horeeyay ee Halloween-ta tan iyo markii xadhibaadaha COVID-19 la qaaday ku dhawaad dhammaan dhibanayaasha 150 ka mid ah 153 la xaqiijiyay inay dhinteen booliska ayaa u sheegay CNN-ta khasaaraha ayaa isugu jira 56 rag ah iyo 97 dumar ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha amniga ee Kuuriyada Koonfureed laga bilaabo 5 galabnimo waqtiga maxalliga ee Axadda ilaa 4 subaxnimo tirada dadka dhaawacmay ayaa kor u dhaafay 130 kuwaas oo 37 ka mid ah ay si xun u dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaraddu Emily Farmer oo 27 jir macallimada Ingiriisa oo ku sugnayd Xi'an oo maraysay jidka Itaewon ayaa u sheegtay CNN-ta beeraleyda iyo saaxiibadeeda inay soo buuxsameen dadkii jidka ku soo qulqulayayna waxay go'aansadeen inay galaan baarka waxyar kadib wararka xanta ayaa bilaabmay yaab in qof dhintay iyo in macaamiisha loo diiday inay baxaan saddex ka mid ah ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la dilay sida uu CNN-ta u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kuuriya dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa dejisay baroordiiq qaran oo bilaabmaysa ilaa dhammaadka 5 Noofambar ra'iisul wasaare Han ayaa hadal kooban ku sheegay inta loo guda jiro baroordiiqda dhammaan hay'adaha dawliga iyo xafiisyada diblomaasiga waxaa ka dulbaban doona calanka ayuu yiri Han isagoo intaas ku daray in dhammaan dhacdooyinkan degdeg ahayn dib loo dhigi doono shaqaalaha rayidka iyo shaqaalaha hay'adaha dawliga ahna ay xiran doonaan dharcad si ay u muujiyaan baroordiiqda ayuu yiri Han maanta intaas ayay inoogu joogaysaa la soco qaybaha xiga fadlan like video si uu gaaro dadka channelkana ku xidhnow mahadsanid wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.